message ayaa ii soo dhacay waxaana uu iga soo dhacay isla lambarkii soo qaraacay message-kuna sidan ayuu ahaa macquul ma tahay isla 3 sano ayaad haweeney qabtaa isla markaana wax ciyaalaya awlaada ma lihid aniga fariintaas markaan arkay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Fahad waxaan kaaga sheekayn doonaa qisadda qaybtii koowaad inta aan qisada bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka subscribe saarto like-tana aad saarto si dad badan u gaaro aniga iyo saaxiibkay Axmed waxaan ahaan ku waqti ku qaata maqaayad isla waqtiga waan sheekaysanay si kaysta waxa u soo dhacay telefoonkayga anigu isla markaa ma garanin lambarkan waxa uu ahaa lambar wadan kale horena umaan arag waxaan dhahay saaxiibkay Axmed saaxiib fiiri lambarkan adigu horey ma u aragtay mar taqaana meeshu ka imanayo saaxiibkii Axmed waxa uu dhahay waan kaaga digayaa hasku qaban lambarkan maxaa yeelay lambarkan waxa uu ka imanayaa wadamada Afrika waa koox budhcadbadeeda waxa ay rabaan inay ka qaataan lacagtaada iyo hantidaada maxaa yeelay dad hore ay isaagu sameeyeen nimankan budhcadbadeedkii waxay kooran doonaan waa sixran tahay isla markaan lacag fara badan ay ka qaadan doonaan anuu aad ayaan u dhaxay markaas waxaan dhahay oo yaa rumaysanaya beentooda saaxiibkay Axmed waxa uu dhahay waad rumaysanaysaa marka aad caabsato jaahilnimada ay ku dheer tahay jahliga cabsidu wax badan ay ka baabiinayaan waxa uu koran doona waa sixran tahay isla markaana aniga ayaa garanaya uu koran doona sixirkaas meesha yaallo waxa uu ka cabsan doona lacag fara badan inaad bixiso wicitaanadan aad ay ugu faafeen dunida ha isku qaban kaaga digaa saaxiibkayow dad fara badan ay saa ku sameeyeen isla markaana wax malaawaal ay noqdeen meel walba waxa jooga dad qooma ah kuwaas oo maalkooda ku bixinaya meelaha aan ka warhaynin anigu isla markaas aad ayaan ugu qoslay waxaan la yaabanaa nimankan beentooda iyo malaawaalkooga 5 daqiiqo kadib waxay soo qaraacay isla lambarkii waxaana ku dhahay Axmed saaxiib ma ka qabtaa si aan uga riwaadeysano ama aan ugu qoslno Axmed waa ugu waafaqay inaan ka qabto isla markaana waan ka qabtay lambarkii waxaana ugu dhahay soo dhawow anigu waan ku waqana laakiin saadu ma taqaanid run ahaanta adigu waa sixran tahay sixirka noloshaada halis ayuu ku yahay waxa uu baabiyay noloshaada oo dhan anigu isla markaas waxaan ku dhahay waa runtaa waan sixranahay laakiin sixirka loo furi karaa waxa uu dhahay taasi dhib ma lahan aniga ayaa aqaan waxaad bixinaysaa oo kaliya lacag waxaan ku dhahay imisa ayaad rabtaa waxa uu dhahay $10,000 anigu waxaan ku dhahay $10,000 dhan waxa uu dhahay $10,000 lacag ma ahan marka loo eego adiga dhibaatooyinka ku soo socda iyo sixirku hay waxa uu yahay anigu markaas waxaan ku dhahay been ayaad sheegaysaa doqon miyaad imoodaysaa ma waxaad u malaynaysaa in aan ku rumaysanaya anigu inta ku rumaysanaysa ayaad waxa uga sheekayn kartaa isla markaas waan ku jiray mobilkii waxa ugu dhahay intuuna mobilka jirin Fahad waad ka shalayn doontaa waxa samaysay anigu isla markaas waan naxay waxaan saaxiibkay ku dhahay sidoo ku ogaaday ninkani magacayga saaxiibkii Axmed waxa uu dhahay taasi dhib ma lahan application ayuu lambarkaaga gelinayaa isla saas ay wax walba ku ogaanayaa anigu arrintaas aad ayaan ugu degay waxaanan arkay inay sax tahay aniga saaxiibkay waqtigaas waan ka soo dhaqaajinay meeshaas aniguna wax walba waxay lahaayeen wax iska caadiya isla markaas waxaan tii gurigayga inta aan gurigayga galin message ayaa ii soo dhacay waxaana uu iga soo dhacay isla lambarkii soo qaraacay message-kuna sidan ayuu ahaa macquul ma tahay isla 3 sano ayaad haweeney qabtaa isla markaana wax ciyaalaya awlaada ma lihid aniga fariintaas markaan arkay aad ay iga naxisay waxaan dhahay ninkani sidoo ku ogaaday inaan haweeney qabo isla markaana 3 sano isla joogno macquul ma aha waxaani arrin aad u weyn weeyaan isla markaas waxaan isku dayay inaan ninkii waco lambarkii ayaan qaraacay waxaan iga qabtay ninkii isla markaas isagoo qoslaya waxa uu dhahay haye ma rumaystay wax walba aan ku sheegay anigu waxaan dhahay sideed ku ogaatay inaan bilaa awlaad yahay ninkii sixroolaha waxa uu dhahay Fahad adigu waa sixran tahay taasina dhib ma lahan sixirku wuxuu kaaga yimaaday xaaskaaga hooyadeed anigu isla waqtigaas waan yaabay waxaan dhahay been ayaad sheegaysaa waxa uu igu dhahay xaaskaaga hooyadeed soo Jamiila ma ahan anigu waxaan ku dhahay anu aad ayaan u naxay waan yaabay markuu waxa dhahay sidoo ku ogaaday xaaskaaga hooyadeed magaceega isla markaas waxa uu dhahay ayada ayaa ku sixirtay habeenkii arooskaaga koob biyo cabaysa ay sixirku ugu riday anigu waxaan ku dhahay maxay sixirsan ku sameeyay waxa uu dhahay waxay rabtaa inay gabadheedu qaadato lacagtaada hantidaada faraha badan adiguna aad nolosha ka haajirto Fahad waan la socdaa inaad tahay nin maalqabeena iyagana lacagtaada faraha badan ee damac ka gashay
anigu waxaan ku dhahay been ayaa sheegaysa weliba khayn ayaa tahay. Fahad, naftaada been ha u sheegin. Sixirka noloshaada ayuu baabiin doonaa. Jidhkaaga oo dhanna waa ku saaqmi doonaa haddii aanay si dhaqsi leh isaga gaadhin. wax kastoona uu kuu sheegaya waa sax. taasina waxaa daliil cad kugu ah gacantaada bidix bal eeg. bal fiiri 2 sano ayay ku xanuunaysay. dhakhtar walba waa tagtay laakiinse wax daawo umaad helin. nasiib daro kaasi waa sixirka. maxaad ii fahmi laadahay? Fahad, waa sixrantahay run ahaantii. anigu isla markaas waan damiyey moobilka. anigu isla markaas waan naxay. madaxa ayaa aad ii xanuunay. waxaba noqday qof waalan oo kale. maskaxda su'aalo fara badan ayaa ka dhex guuxayay. waxaan isweydiinayay anigu inaan san nolosheeda maro xaq miyaan u leeyahay? ninkii sixroolaha muxuu iga rabaa? laakiin suu ku ogaaday xanuunka xitaa aan ka qariya xaaskayga, qaraabadeeda iyo asxaabtayda? suu ku ogaaday qacantayda intaas inaan qarinayay? siduu ku ogaan karaa qof Afrika jooga xanuunada aniga iga khaaska ah? anigu isla markaas waxaan ku soo noqday guriga. waxaan u imaaday xaaskayga oo hurda. isla markaas wax xashaa imay samaynin. anigu waan fikirayay. waxaan isweydiinayay xaaskaagu ma ahan mid wanaagsan. maxaa yeelay waqtigayga ugu badan waxay ku qaadataa daawashada aflaanta iyo musalsalada. shaqada guriga kaliya waxay ku daawataa shaqaalayaasha. waxay u dhaqantaa sidii qof kibirsan oo isla weyni ay ka buuxdo. waxaan soo xasuustaa mar walba hadalkii sixroolaha. waxaan isweydiiyey su'aal: xaaskaagu sow maahan mid mar walba wax xada? taasoo waxay xadda dusha ka saartay shaqaalaha guriga jooga. anigu isla markaas kamarad qarsoon ayaan guriga ku xidhay. marar fara badan ayaan arkay iyadoo wax xadaysa isla markaana dusha ka saaraysa eedoo dhan shaqaalaha guriga jooga. way laysaa oo way qaraacdaa hablaha guriga jooga. si xun ayay ula dhaqantaa. wax naxariisana ma lahan. bal eeg xilliga ay iska hurdaa. wax cashaana kuma aysan diyaarin. markii aan guursaday ayaan dareemay in ay tahay xaaskaygu mid aad u xun. waxaanan ogaaday in ay tahay ciqaab dunida laygu marinayo. anigu keliyaata waxaan ugu sabrayay in ay awlaad ii yeelato. laakiinse dhakhaatiirta inta ugu badan waxay sheegeen inaan anigu cilladu tahay, iyaduna ay caafimaad qabto. iyadu 100% way caafimaad qabtaa. isla markaas waxaan dhahay suma wallaahi allah baan ku dhaartay hadduu hadalka sixrool run noqdo, xaaskayga iyo hooyadna ay sixreen, noloshooda ayaan baabiin doonaa. madhalaysnimada ayaa igu qasbatay inaan u samro. habeenkii saqda dhexe marka la gaadhay waan seexan waayey. waxaana igu bilowday walwal, walaac iyo walbahaar. cabsiyo aad u fara badanna waan dareemayey. isla markaas waxaan soo qaatay moobilkayga. waxaana wacay ninkii sixroolaha. waxaan ku dhahay haye intee oo lacagaan rabtaa inaan ku siiyo, laakiinse hal shuruud ayaan wataa: in aadan khiyaamin, wax walbana si wanaagsan aad ila qabato. waxa uu uga dhahay Fahad, adigu nacas ayaa tahay. weli imaad rumaysan miyaa? haddii aad u baahan tahay waxaad igu rumaysato, waxaad aadaa musqusha. halkan waxaad ku arki doontaa cadeymo fara badan iyo sir ku qarsoon. anigu isla markaas telefoonka waan dhigay. waxaan u cararay xagga musqusha ayaan baadhay. meel kastana waan ka eegay, laakiinse si kaysta waxaan u arkay daawo taalla. waan naxay. waxaan isweydiiyey daawadan aniguma isticmaalo, taloyaa isticmaali kara. waxaan u soo cararay xagga kombiyuutarka. laabtoonka ayaan furay. isla markaana daawada magaceega ayaan ku qoray. waxaan ogaaday daawadu inay tahay daawada laga hortago uurka. isla markaas aad ayaan u naxay. waxaan dhahay yaa dhigay halkaas. waxaan si degdeg u qaraacay ninkii sixroolaha. waxaana ku dhahay wax walba oo iga qarinaysay ii sheeg. waxa uu dhahay maxaad heshay? waxaan ku dhahay waxaan helay daawada uurka laga hortago. wuxuu dhahay xaaskaaga ayaa halkaa dhigtay. halkaas ayaan ku qarstay. Fahad, si wanaagsan u fikir. maxaa yeelay adigu dhakhtarka aad tagtay waxuu sheegay in aad madhalays tahay. maxaa sababay inaad isticmaasho daawooyinka uurka laga hortago? fikir. anigu waxaan ku dhahay been ayaa sheegaysa xaaskayga adiga ay kaa wanaagsan tahay. waxuu ku dhahay adigu nacas ayaa tahay. waxa hareeraha ka dhacayana waxba kalama socotid. anigu waxaan rabaa inaan ku caawiyo weliba si ugu wanaagsan, laakiinse intaanan ku caawin ka hor waxaan rabaa in aad lacagtada ii soo dirto. anigu isla markaas waxaan ku dhahay mise ayaad rabtaa? waxuu dhahay lacag aad u yar, $100,000 ayaan rabaa. anigu waxaan ku dhahay maxaad ka wadaa $100,000? ma waxaad u malaynaysaa inaad $100,000 beenbeen iga cuni karto? waxuu igu dhahay jawaabtaada waxaan u fahmay in aadan lacagtaas bixinaynin. anigu waxaan ku dhahay hama bixinayo, moobilkina waan ku jiray. waxaan la xaqiiqsaday waxa uu sheegay sixroolo inay run yihiin, xaaskayguna ay khiyaanoolay tahay, anigana intaasoo dhan noloshayda ay soo khiyaamisay. daawada ay xaaskaygu ka qarinaysay xitaa waa uu ii sheegay. wax walba waan rumaystay. anigu isla markaas waxaan soo qabtay moobilkii. waxaana qaraacay ninka haddana sixroolaha ahaa. isla markaas waxaan ku dhahay wax walba oo sheegayso waan rumaystay. waxaan rabaa inaad i caawiso. waxaad ii sheegtay halkan lacagta ku soo diraya akoonkaaga. waxuu dhahay may lama baahna inaan kuu sheego akoonkayga.
lacagta ayaa diyaarinaysaa isla markaas waxaad ku ridaysaa boorso dumarku lacagta ku qaataan waa inay ahaataa mid aad u yar waxaad la kulmi doontaa gabadh isla markaasna waxay ku siin doontaa caagad yar ay ku jirto daawo daawadaasi waa midii sixirkaaga masixi lahayd isla markaana aad ku caafimaadi lahayd wuxuu dhahay gabadhu waxay kula joogtaa magaalada aad joogto waxaan ku dhahay xaggeen ka helayaa wuxuu dhahay hawarwarin waxaad la kulmaysaa wakhtiga casarka 5 galabnimo isla markaasna waxaad kula kulmaysaa meesha roodhida lagu dubo moofada wuxuu dhahay waxaan rabnaa inaad siiso isbuucaasna waxaan kugu daarin doonaa daawadaada isla markaas wuxuu dhahay masku waafaqnay arrintaas ana waxaan ku dhahay waan isku waafaqnay inta aan moobilka dhigin wuxuu dhahay sir muhiim ayaan kuu sheegayaa Fahadow waxaan ku dhahay maxay tahay sirta ii sheegaysaa wuxuu dhahay jaarkaaga mid ka mid ah wuxuu hayaa sir aad u muhiim ah ku saabsan anigu waxaan dhahay jaarkeed ka hadlaysaa wuxuu dhahay duqa cajuuska ee jaarkaaga kaasoo dadka ay wada necab yihiin fargelintiisuna ay fara badan tahay waxa ugu dhahay hadda ma haysta cadnimo fara badan moobilkana waa uu dhigay anigu aad ay u naxay waxaana maskaxdiisa weydiinayay maxay tahay waxyaabaha fara badan oo khashafay wax walba sida ay yihiin ayuu u cadeynayaa calaamadaha uu odayga ka sheegay waa sax odaygaasi waa cajuus aan hawlka lahayn taas oo ka hayn inuu dadka ilaaliyo xaafadda ayuu ilaaliyaa qofka ka baxay oo qofka soo galay waana mid war badan anigu waxaan isweydiiyey odaygaas wax xiriir oo wanaagsan igama dhexeeyaan sideed u weydiin kartaa su'aasha ah aniga ma sir baad iga haysaa muhiim ah saaxiibada qiimaha badan ee halkan iga daawanaya halkaas ayaan gudinayaa qisada qaybta koowaad waxaan rajaynayaa in aad la socon doonto qaybaha dambe ee soo socda kuwaas oo aad u xiiso badan waxaan kaa codsanayaa haddii aad kanaalka weli ku soo biirin inaad ku soo biirto si ayna kuu dhaafin wax kasta cusub inta aan ku kulmano qisadan qaybtada labaad sidaas iyo ammaano Allah